dunida maanta waxaa loogu yaqaanaa inuu yahay dal awood leh hogaaminaya dhaqaalaha, tiknoolajiyadda iyo siyaasadda caalamka. Laakiin miyuu yahay hogaamiye nabadeed mise awood qarsoon oo dagaalaha ayuu hurinayaa? Taariikhdu waxay muujinaysaa inuu yahay dal si xirfad leh u maareeya shirqoole, dagaalo iyo qalalaase caalami ah isagoo isu ekaysiinaya badbaadiye, balse dhab ahaantii ah awood dilaaga qarsoon ee burburiya wadamo badan caalamkana ka dambeeya. waan hubaa 30 ilbiriqsi gudahooda inuu maskaxdaada ku soo dhacay dalka. Waxaa jira war rasmi ah oo sheegaya inuu door hogaamineed ka qaatay ama uu ku lahaa dagaalkii koobaad kii labaad, balse xaqiiqadu waxay noqon kartaa mid taa ka duwan wixii la sheegay. Waa suuragal inuu dagaalada si ula kac ah u abaabulay si uu xoojiyo xukunkiisa caalamiga ah. Intaa kuma eekaan ee waxa uu abuuray cadow la mubuuniyay sida argagixisada si uu ugu marmarsiiyoodo fargelinna uu ugu sameeyo wadamada kale, isagoo burburiyay dalal badan si uu xoojiyo danihiisa gaarka ah. Dabcan Mareykanku ma yahay nabadoon mise waa maskaxdii ka dambeysay burburkii iyo baabi'ii dalal badan? Asalkiisu waa maxay? Maasoniyadu waa maxay? Ujeedada ay ka leedahay xaqiiqadu ma tahay sida muuqata mise waxaa jira sir qarsoon oo indhaha caalamka laga qariyay? Waxaa la joogaa xilliga aan sahamin lahayn runta qarsoon ee ka dambaysa awoodda weyn ee Mareykanku sheeganayo. Dambiilaha qarsoon. Waxaa jira dal caalamka ku yaala oo gacan qarsoon ku yeesha dagaal kasta oo ka dhacaya caalamka, isla markaana ay dani ugu jirto dhiig walba oo daadanaya. Waa dal isku dira wadamada isaguna noqda kan soo hara isaga oo aan gudihiisa dhiig ku daadan. Miyuu soo dhow yahay dagaalkii saddexaad ee caalamka mase malaynaya in ay masiibo madoobi dhici doonto mar aan dheerayn? Bal aan gadaal u fiirino sida ay u dhaceen dagaaladii koobaad iyo labaad ee caalamka soo maray si aan u milicsano waxa dhici kara. Sababta la sheegay in uu ku bilowday dagaalkii koobaad ee adduunka waa in boqorkii Austro-Hungary lagu dilay shirqool, kadibna ay dagaal ku ballameen dawlado markii horeba xulufo ahaa, balse waxaan caqliga fakaraya ka dhaadhacayn ayaa ah in hal nin dartii intaas oo dawlado ku dagaalameen. Waxaa muuqata in xaqiiqadu sidaa ka fogeyd. Xaqiiqadu waa xukunka aan muuqan ee maasoniyadda. 1776 ayay dhisteen dawladda aan haatan naqaano ee loogu magac daray Mareykanka. Bal fiirso, wadan aan lahayn taariikh fog ka samaysay dad lagu beeray meesha kadib markii la tirtiray dadkii ku noolaa ayaa ah quwadda caalamka. Maasoniyaddu waxay aaminsan tahay ayaa ah in diinta iyo xukunka lagala saaro adduunyadana ay si daahsoon u maamulaan ayaga oo ku daba faylsan Mareykanka. Haddaba sidee Mareykanku ku noqday dal weyn? Waa in quwadaha kale la geliyo dagaal weyne caalami ah, iyada oo Mareykanku dibadda ka ahaanayo isla markaana uu yeelanayo go'aanka ugu dambeeya, maadaama uu isagu noqonayo quwad awood badan marka ay isku jawaan awoodaha kale. Haddaba qorshaha noocan ah ee dagaalkii koobaad ee adduunka waxaa si cad u fahmay suldaankii ugu dambeeyay ee khilaafadii Cusmaaniyiinta, Suldaan Cabdixamiid. waxa uuna laf dhuun gashay ku noqday qorshaha. Intaa kadib waxaa 40 sano kadib suuro gashay in kacdoon xilka looga tuuro. Intaa kadib waxaa bilowday dagaalkii koobaad ee caalamka. Si dagaalkaasi uu abuurmo, waxaa la keenay siyaasadda nin jeclaysiga ah ama qowmiga, taasoo sababtay in ay dagaalamaan kuwa xadadka uu ka dhaxeeyo. Waxaa haddaba halkaas ka bilaabmay in ay xulufaysi dagaal oo hadba intii isku fikrad dhoweyd ay israacaan. Dhammaanba dawladihii waaweynaa waxa ay ku hoobteen dagaalkaasi, balse Mareykanku ma ridin wax xabad ah. Haddana markii uu dagaalkaasi dhammaaday, isaga ayaa sheegtay guusha dagaalka. balse caqabada la yaabka leh ayaa noqotay dagaalkaas kadib waxaa soo baxay quwado aad u xoog badan sida Jarmalka, Jabbaan iyo Midowgii Soofiyeed. Haddaba waxaa muhiim noqotay in la sameeyo dagaal labaad oo la isku riiqmo si ay banaanka u soo istaagto awoodda Mareykanku. Haddaba Mareykanka mar kale ayuu Yurub u kala saaray Jarmalka iyo Talyaaniga oo dhinac ah iyo inta kale oo dhinac ah. Haddaba mar kale ayaa Mareykanku hoosta ka qoslaya markii ay afka dhulka la gashay awooddii dalalkaas. Ugu dambeyntiina waa kii 2 bam oo ah kuwa waxgumaada ku dhuftay Jabbaan, kadib sidaas ku hantiyay dalka ugu awoodda badan caalamka. Mar kale dagaalkii qaboobaa ee Mareykanku Ruushka ayuu ka caqli badiyay, waxa uuna ku diray Afghanistan oo ugu dambeyntii jab ka raacsiisay, sababna u noqotay inuu burburo Midowgii Soofiyeed. intaas kadib caalamku wuxuu mar kale ku baraarugay Mareykanka oo aan quwadda dunida sii ahaan karin, waayo waxaa soo baxday
Ruushka oo soo rogaal celiyay Shiinaha oo dad iyo dunyaba ka badan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo caalamka kale faraha la gelin balse aanu Mareykanku waxba u yeerin karin. Intaa kadib Mareykanku waxa uu sameeyay inuu saddexdaas dal mid walba cadow u beero si uu danihiisa u sii wato. dabcan waa waqtigan aanu ku jirno waa dareemi kartaa xaaladuhu sida ay yihiin. Haddaba Ruushka waxa cadow looga dhigay Yurubta Galbeed iyo Ukraine. Shiinahana waxa cadow looga dhigay Taiwan, halka Kuuriyada Waqooyi lagu diray Kuuriyada Koonfureed oo ay dhaliyo wadaag yihiin. Siyaasaddan guracani waxa ay dhalaysaa in ay isbaahaysmi ay abuurmaan isla markaana adduunka intiisa badan aadanaha ku nooli ay isfarasaaraan. Si kastaba ay ahaataba waxa aan marba daahsanayn inuu bilaami doono kii saddexaad adduunka oo la isfarasaaro balse caalamka ay yaalaan kumanaan madax oo nuclear ah. Sidoo noqon doona haddii dagaal weyne uu ku qarxo. dabcan sawirka guud ee ku soo baxayay ama saadaalisha waxay noqon kartaa in lagu laaban doono qarnigii seefaha xadaaradana la sheeganayana halkaas lagu gubi doono ama lagu baabiin doono. maxaa yeelay hubka maanta yaala adduunka waxa uu sababi karaa inuu soo afjaro horumarka socda iyo nolosha asaasiga ah. waxa si dhab ah u garwaaqsan kartaa marka aad si dhab ah wax u eegto in aadanuhu uu gamcihiisa isku ciribtiri doono mar aan aad u fogeyn balse aan aadame qeexi karin xilliga ay ku beegan tahay. Nuclearka Bariga Dhexe warshadii ugu horeysay ee nuclearka ee dal Carabeed yeesho Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa hawlgeliyay warshadii ugu horeysay ee nuclear ee uu yeesho dal Carab ah oo ku yaala gacanka Carabeed. tayeynta quwadda nuclearka ah oo 4 qaybood ka kooban. qaybtii ugu horeysay waxaa laga bilaabay warshadda Baraka iyadoo oo la adeegsanayay tiknoolajiyadii uu sameeyay dalka Kuuriyada Koonfureed. warshadda ayaa la filayay in ay si rasmi ah hawlaheeda u bilowdo 2017 balse waxaa marar badan ku yimid dib u dhac la xiriirayay ammaanka warshadda. dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo saliidda hodan ku ah waxa uu doonayaa warshadda inay 3 meelood meel baahida dhinaca tamarta ee dalkaasi u baahan yahay ay daboosho. sidoo kale Isutagu waxay hawada sare u direen dayax gamceed heerkiisu sareeyo oo loo adeegsanayay cilmi baarista taasoo dalkaasi ka dhigtay dalkii ugu horeeyay ee ka tirsan Khaliijka oo tallaabadaas qaaday. khubarada tamarta qaarkood waxay su'aal geliyeen suurtagalnimada warshadaasi loogu magac daray Baraka maadaama tamarta laga helo qoraxda uu yahay mid nadiif ah oo raqiis ah isla markaana macno badan u sameynaya gobolka ay ka taagan tahay xiisado iyo siyaasadeed jahawareer. sanadkii hore warshadda Baraka ee nuclearka waxay qadar ku tilmaamtay khatar muuqata oo ku soo fool leh nabadda iyo deganaanshaha gobolka. dalka Qatar waxay xiisad siyaasadeed oo aad u xooggan kala dhaxaysay Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Dr. Paul oo ah madaxda kooxda caalamiga ee la talinta dhinaca hubka nuclearka u qaabilsan wuxuu sanadkii hore qoray nuclearku waxa uu sii horinayaa xiisada ka dhex taagan wadamada Khaliijka maadaama warshadda quwadda nuclear oo la sameeyay ay horseedi karto awood dalka warshadaasi leh uu ku sameysanayo hubka nuclearka. dabcan Imaaraadku wuxuu sameysanayaa koronto nuclear ah waa arrin la yaab leh isagoo haysta shidaal diyaar ah oo intaas la eg. xaqiiqada halkaas ka muuqata waa kadib markii maaro uu u waayay Mareykanku nuclearka Iran inuu sameeyo cudud kale oo Iran ka soo horjeeda. maxaa yeelay siyaasadda Mareykanka ayaaba ku salaysan isku dirka dawladaha. saamaynta uu nuclearku yeelanayo waxaa jirtay xilli ay dunidu ku tartantay sidii loo burburin lahaa hubka wax gumaada balse wadamada qaar ayaa dhagar sameeyay oo waxa ay sii kordhiyeen hubkoodii sida baan wax u gumaadayay xilliga wadamada qaar ay burburiyeen nuclearkoodii. taasi ayaana keentay inaan dib dambe dunidu ayna isku aaminin. Pentagon-ka ayaa ka caraysnaa inta ay haystaan in aysan ugu filnayn cabsi gelin. sidaa darteed doodu waxay socotay kaydka Mareykanka waxaa ka buuxsamay hub duug ah oo aan la isku halayn karin. hubkan duugoobay waa awood burbur iyo waxyeelo leh oo laga yaabo inuu ka cagajiidayo inuu adeegsado hadiiba cadow uu soo weeraro balse haddii hubkaas la waxyeeleeyo waxa uu burburin karaa dalka uu yaalo. sida awgeed qorshayaasha dagaal ee Mareykanka iyo soo saarayaasha hubka ayaa isku dayay in ay ka dhigaan hubkaasi mid la isticmaali karo si ay madaxda u siiyaan ikhtiyaaro dheeraad ah. in hubka laga mamnuuco wadamada qaar waxay ahayd suurtagalnimada in loo adeegsado iyaga oo ah aalad siyaasadeed si looga dhigo kuwa liita oo loogu awood sheegto dalalka safka ku jira. si kastaba ha noqotee Trump nin horeyba u xamaasad iyo waali badnaa ayaa qabtay madaxweynaha Mareykanka dawladiisu si ay u xakamayso North Korea. wadab iyo gaas waa ay isugu dartay si aysan dunida marnaba
arag ayuu u hanjabay baaqabka qataraha isaga tallaabsada ee Kuuriyada. Habkan oo kale ayaa cadeynaya xitaa xadidaad badan haddii la saaro dalalka inaysan u sii dhawaanin adeegsiga hubka oo sababi kara khatar aadan ka timaada tii ugu sarreysay. Wadanka kaliya ee magaalooyinka loogu nool yahay u adeegsaday hubkan balse aan cidi kula xisaabtamin waa Mareykanka. Waxa uuna doonayaa inuu mar kale isticmaalo, balse markan xaaladdu sidii hore ma aha. Xilligaas kaligiis ayaa ka haystay dunida hubkan. Hadda wadamada aad looga baqayay inay ku degdegmaan isticmaalka waa Shiinaha, Hindiya, Pakistan iyo Kuuriyada Waqooyi oo uuba hubkan leeyahay sida qori gacmeed oo kale, isticmaalkiisuna uusan wax weynba lahayn. Xilligan waa uu jiraa wadan bilaabi kara dagaal nukliyeer ah, hase ahaatee ma jiro dal og in uu leekaan karo khasaaraha loo gaari karo, waayo hal qunbulad oo wadan lagu dhufto ayaa keeni karta in la isku farka naxo oo dal walba kii cadawtooyada kala dhaxaysay shucaac qarqiyo.